kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee janaalkeena kulmiska wararka wadamada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya ayaa kala diray guddigii doorashooyinka madaxa bannaan ee xuduudaha qaranka ee Soomaaliya ويركعس حليم إبراهيم إسماعيل حليم يري ودومي قدي مدح بنانا يدورشوني كذلك أو فرماجو ودسي حير هراء وصل شارع مدحوين هراء فرماجو وعاول اللالي ومدحوين حسن محمود لالي أيها داود دونتان وحاي كده جنتها بربرين تيو كلا درد قدي دورشوني كمدح بنانا يدورشوني كقرن كإسماعيلية وارد سوق بدونا قطبة مدحوينها وعكسدي وحا كلو إدين سوق بدونا عيال وراء ودبصوا على يويل غيراء يكون دلين هذا مقدسو قاعنا دقمة ياخشي دقوبر كبنادر حتى بقدوميها عصوبة دقمة ياخشي سويبان فرقع محا او قرشيسان ديباتينتا هدك شعبكا عيال ويراء يصول بك عليه نبكا ايقوها يان وان يسوق بدونا قرشاش امنيقا وكل يهي قدوميها وحا كلو دابو دونتانا دفعنا كونفور قلبيات اسماعيلية لفتقرين وح ور عجيبة كسو صاري باقي قدوميها كلها شعبكا ادن مدوبي ايقو ادنا شركة دبوشيتينتا دقيقة كونفور قلبيات كفر مياه ابا محوكير وداو دونتان جيشون وحو كهضي كل بيشي سي مدحوين حسن محمود أحمرين وبس نقوفا فاندونا ورا كلام معانا كنت ما سيدا ودو مقال كلاس سارسين وشركة سبسكرايب في النودة آد بدو ما سنتين هات يا جرسات نلا صوتها ونلا دان قاعدة سام وأنا كما تقلنا كل كانوا كل مسكورك وما سنتين أنا كوب اللونو مدحوينها سوماليا يا صوص هري وريتو قصافن وافجين تشرعي حير مدحوين أول صوص هري sanadkii 2020 kuwaas oo aqalka sare baarlamaanka federaalka ay tilmaameen inay khilaafsan yihiin habraaca dastuurka gumeelgaarka uu tilmaamayo wareegtada madaxweynaha ayaa meesha ka saaraysa muddo kordhin loo sameeyay guddiga madaxa bannaan iyo dastuurka iyo xuduudaha federaalka oo waqtigoodu uu sidaa uu ku noqonayo mid dhacaya waxaa kaloo dib loogu noqonayaa ansixinta sharciga hadda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed laba qodobada ah madaxweynaha cusub waxaa ka mid ah markuu arkay qodobka afraad farqidiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka markuu arkay qodobada kale ah 71 82 iyo 181 kale iyo 182 ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda qodobka sagaalaad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka farqigiisa koowaad oo madaxweynaha guddigu ku soo koobtay 6 sanadood oo aan la cusboonaysiin karin iyo qodobka 10aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka madaxweynaha oo tixraacaya qodobka 87aad ee dastuurka jamhuuriyadda oo ku waajibinaya ilaalinta iyo horumarinta mabaadi'da asaasiga ee dastuurka dalka ayaa buriyay xeerka madaxweyne sida dastuurka khilaafsan yahay uu soo baxay oo kala ah xeer madaxweyne LR 40 oo ku taariikhaysan 11 bisha 2020 kuna saabsan ansixinta sharci wax ka beddelka qodobka 9aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka labo xeer madaxweyne LR 42 oo ku taariikhaysan 11 bisha 2020 kuna saabsan ansixinta sharci wax ka beddelka qodobka 10aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka afraad xeer madaxweyne LR 42 ku saabsan oo ku taariikhaysan 11 bisha 2020 kuna saabsan ansixinta sharciga hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa fariinaha kala xukuumadda inay soo dhisto xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka si waafaqsan qodobka 112 ee dastuurka gumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shuruucda lagu dhisay arrintan ayaa daba waxaa iimaanka xilli nidaamkii hore ee farmaajo hore lagu eedeeyay in markaa sharciyadii iyo shuruucda dalku yaalay ee baal mareen dhinaca kale haddii anaga saxbaa ayaa weeru ayaa dib u soo laabtay waxayna bilaabeen shaqadoodii ahayd dhibaateynta dadka shacabka iyo waxyeelida in ay markaas dadka ay nafta ay ka qaadaan laba naftan qaadee hase yeeshee sababtu ay leeyihiin waxaa xaafada kamid ah magaalada Muqdisho dib u soo noolaaday kooxihii ciyaal weerada oo dhibaato weyn ku hayay dadka caasimadda iyadoona ay xalay wiil dhalinyaro ay ku dileen Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid koox ciyaal weerar ayaa xaafada lagu magacaabo Nuur Tukumbe ee degmada Yaaqshiid ku dilay nin dhalinyaro oo lagu magacaabi jiray Shaafici Macan Nuur waxaana dadka ehelkiisa ay sheegay inay qaar kamid ah ciyaalkaas ay tuuray ay ugu dhufteen meel halis ah oo dilkiisa kamid ah kadib dhaawac soo gaarno u geeriyooday marxuumka Allah u naxariistay sida iyo murugada ka latay dilka wiilkan ayaa hareeyay qoyskiisa iyo saaxiibadii waxay arrintan dib u soo nooleynaysaa dhibaatadii ciyaal weerarada xaafadaha Muqdisho oo ku hayeen horaantii sanadkan oo heer halis ah gaatay dadka xaafadaha degmooyinka Yaaqshiid
iyo hilwa kaalaan ayaa sheegay inay si weyn ay dib ugu soo laba kaclayeen yaalka weerarada loo yaqaano hadda ku hubeysan tooreeyo baangado iyo biro waaweyn iyadoona dil dhac iyo waxyeelo ku haya dadka deegaanadaas degan saddexdaas degmo oona markaasi uu ka mid ah galbeedka magaalada muqdisho oo si weyn markaasi ugu dareemayo dhibaato dadka shacabka ku qabaan ciyaalkaasi weerarada loo yaqaano abii hore ayaa daawanaysa channelkeena kulmiska wararkeena nagala socotaan saaxiib subscribe inoo saara muuqaalka like ah siina shaqeeya aad baad u mahadsantihiin had iyo jeer si aad nala socotaan oo aad nala jaan qaadaysaan bal markaana aan eegno daahir amiin jeesow oo golaha shacabka ka mid ah kuwa uga afka dheerna waxa uu ka hadlay kulan beeshiisa iyo madaxweynaha dhexmaray daahir amiin jeesow ayaa magaalada beledweyne waxa uu shir jaraa'id ku qabtay kaga hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweyne xasan maxamuud oo beledweyne markaas ay kula kulmeen iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab jeesow ayaa sheegay in madaxweynaha ay kala hadleen sidii deegaanada dhaca galbeedka gobolka hiiraan looga xoreyn lahaa al-shabaab halkaas oo beesha uu matalo markaasi jeesow ay degto dagaalkan waxaa iclaamiyey madaxweynaha kulan gaar ah ayaa la yeelanay aniga waxgaradka beesha wuxuu naga ballan qaaday in wixii qaldan la sixi doono laakiin in la xoreeyo dhulkeena ayaa wax kasta ka horeysa ayuu yiri daahir libaanka ayaa ku hanjabay in beeshiisa ay dhowaan ay qaadi doonto dagaalkii ugu cuslaa abid isagoo ugu baaqay dadka uu matalo dal iyo dibadba inay isgarab taagaan oo loo diyaargaroobo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee lagu xoreynayo deegaanada ay ka heesaan meel kasta oo beesha aan matalo ay degan tahay hiiraan ilaa ay jubbaland maalmaha soo socda dagaal ka culus kuwii hore oo kooxda al-shabaab lagu laanayo ayaa ka bilaaban doona buuriyey jaaliidaha beesha waxaan ka codsanayaa inay garab istaag noo muujaan ayuu si raacay hadalkii daahir amiin jeesow daahir ayaa taas ku daray deegaanadaha aan ka soo jeedo ee galbeedka hiiraan waxaa laga bilaabi doonaa dagaalka ka dhanka ururka waxaana madaxweynaha ka wada hadlanay howlgalkaas wixii tabasho ana waa la xalin doonaa socdaalkii madaxweynaha ayaa ahaa in la dardargeliyo dagaalka waana dhaqdhaqaaqeenaa buu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa xildhibaan daahir amiin jeesow oo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ka tirsanaa dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka hadlay warna kasoo saaray baaqii gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ee ku saabsanaa in siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed ee shir iskugu imaan doonaan aadan madoobe oo deegaan ahaan kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa dhowaan iclaamiyay shir guud oo lagu adeegsanayo xiisada siyaasadda ee ka taagan maamulkaas taas oo ka dhalatay muddo kororsi uu sameysay laftagareen qolaa kasoo baxay madaxtooyada koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu soo dhaweynayo baaqa gudoomiyaha iyadoo markaasi la xirinayo mudnaansiinta danaha koonfur galbeed iyada oo la tixgelinayo kacdoonka shacabka laguna dagaalamayo kooxda al-shabaab oo ay hogaaminayeen ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada daawaishta koonfur galbeed si loogu ceebto dalka iyo dibadda ayaa lagu yiri qoraalka oo lagu sheegay arrimaha mudnaanta u leh maamulka koonfur galbeed sidoo kale wuxuu aqbalay laftagareen baaqan iyada oo markaasi la xaqiijinayo guulaha dhismaha dowladnimadeena ee laga maarmaan ku ah muhiimadda shacabkana sida lagu sheegay qoraalka xafiiska madaxweynaha wuxa uu soo dhaweynayaa baaqii gudoomiyaha golaha shacabka ku baaqay waqtiga shirka uu furmayo waana idinla soo wadaagi doonaa gudoomiyaha ayaa horey ugu baaqay waa gudoomiyaha aadan madoobe in dhinacyada isku hayo koonfur galbeed iyo bulshada rayidkaba inay kasoo qayb galaan shirkaas oo lagu adeegsanayo masiirka maamulka koonfur galbeed ayaa wajahaysa xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran taas oo u dhexaysa madaxtooyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee koonfur fadhigooda ee muqdisho waxaana xiisada kasii dartay kadib markii muddo kordhin 2 sana loo siiyey madaxweynaha maamulkaas laftagareen oo si weyn markaasi eedeymo culus wajahayay oo ka dhana siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulkiisa dhilashan wararka weyn Soomaaliya calanka kasoo jeedaan keena kumiska wararka daawada wanaag inta